waxaan rabaa inaan sheego dadweynaha Soomaaliyeed meel ay joogaanba iyo dadweynaha reer Puntland meel ay joogaanba airportkii inoo furan yahay shaqeynaayo diyaaradihii jadka ahaa ee imanayaan si fiican ay shaqo uga socoto una jiro isbedel ka jira airportka isbedelkaas muxuu yahay dhinacyo badan buu taabanayaa waxaan idhi airportka waa furmay waxaan wax imanaya diyaarada jad ah oo dadka hadda qaada oo propellaradii waa laga raystay waa moodaa markaan saaleeyahay isbedelkaas waa isbedelkii duulimaadka iyo diyaaradaha walow ay jiraan wali ayna noo bilaaban tos diyaaradihii daafaha adduunka inoo ka aadi jiray oo aynu wali maro meelaheena hore iyo routiska hore iyo jidadka hore lagu socdo waxaan rajaynaynaa inaad toos halka uga dhuftaan oo ka aadan caalamka oo dhan walba meeshu doono insha Allah way soo socotaa waxa isbedelay shaqadii ka socota airportka sida amniga aan ku qabsado marka amniga waxa iska bedelay waxa lagu xoojiyay oo la keenay ciidamo tababaran kulliyada ka soo baxay sharciga yaqaan shaqadana yaqaan ciidamadaas waxa soo siyaadiyaan booliska ahi in ay amniga ka cambira ku qabtaan u sugaan sidii la rabay salaanta waxaan ka ilaaway walaalkay al-akh aadan jaamac muuse jaamac oo ah taliyaha cusub ee laga soo magacaabay airportka oo aad iyo aad si qurux badan wax uga bedelay amnigii iyo procedure-kiisi nidaam ee airportka ee boolis kuna mahadsan sharaf iyo biladna ku mudan inta aniga aqoontayda iyo aragtidayda ah iyo sida wanaagsan u shaqeynayo ciidankiis waa la wadaagaa waayo hadaanu ciidankaasu sida uu xusugin isaga farkaliya fool ma dhaqdo marka dadweynaha waxaan sheegayaa ka dhoofa oo passengerska ah oo customerka ah oo airline-ta isticmaalaya airportka ka dhoofaya in isbedel xagga amniga ay jiro dhinac walba u jira amnigaasu wacyiga ka jira adduunka kan ka jira Soomaaliya iyo isbedelka airportku qaatay isbedelka airportku qaatay amnigeena waa isbedelaya marka waxaan ka codsanayaa dhoofayaasha isticmaalaya airportka in ay u hogaansanaadaan baaritaanka iyo ijraa'aadka iyo amniga la sugayo soo dhaweeyaan booliska la shaqeeyaan ogolaadaan in la sugo amniga dadka oo iyaga ah diyaaradaha oo way raacayaan ah iyo dalka oo ah saldhigoodii ay ku noolaayeen oo guryahooda ka dhisnaayeen oo hantidoodu tiil sababtoo ah hadii wax yar oo amni xumaay dhacdo waxa imanaya dhistaatar ah in naf la waayo hantina la waayo samcadii iyo duulimaadkii iyo wixii wadanku ahaana la waayo furay systemkii aanu ku bilownay abni ahaan iyo shaqo ahaan wax ay naga bedeshay ma jiro saameeyna naguma yeelan arinta xamar waanu ku furay waanu ku bilownay waanu wadnaa waanu wadi doonaa oo way dhacaysaa wax weyna wada saameynaysaa muqdisho waa Soomaaliya Soomaaliyana waa Soomaaliya Boosaaso waa Soomaaliya Soomaaliyana waa Soomaaliya airline waa airline diyaaraddu amar wax lagu yeelay tagar boos lagu yeelaa waa isku mid dhinacaana waa oran karaa oo hadii wax dhacaan hadee wax waa adkaanayaan dhinac walba ka adkaadeen oo hatta diyaaradu waxay la imanayaan abnigooda iyo adkayntooda waxaanu ku qasbanahay way codsadaan inaan fulino sababtoo ah iyaga nu adeegayna dadkaas iyo diyaaradaha waxaan meesha u taaganahay habeen soo jeedna marka madaxa